Degmada Yagoori waxa ay ka mid tahay meelaha uu sida weyn uga dabaaldegay xisbiga mucaaradka ee Wadani kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga Wadani ayaa la arkayay kuwaas oo ku xidhan astaanta u gaarka ah xisbiga Wadani waxa ayna muujinayeen taageerada ay u hayaan xisbiga Wadani aad moodid in ay hadda markayna arkeen cududeena inay guriyaha dib ugu walaabtay xataa ay xamil waa inay laamiga soo istaagaan taas ayaa horta mahad inoo ah oo sharaf inoo ah inaga anigu hadal badan ma bixin ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa ta'aala halkan isugu keenay madashan quruxda badan waxaan salaamayaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Dar es Salaam ana xafiiska Kulmiye oo hadda dhinacayga taagan Axmed Salmaan Maxamed inkaasi dhalinyaradii si uu shiriyay dhalinyarada wixii xalay u soo waa magaalada degayn dad aan la waali karin oo la khiyaamayn karin magaalada Yagoori waxaan leeyahay idinko intaas oo astaan in ay daliisho imaamadaan waxaan soconayn dad inay idisoo imaamadaan program aan soconayn waxaan rabnaa inaan ka hortagnaan rabnaa waxaad qoraxda u taagan tihiin waxaad wadada u taageersan tihiin waxa qabad la'aantii ka qabsatay inta Kulmiye joogay Yagoori inta xilka hayay Yagoori si wanaagsan baa u soo baxdeen boqolkiiba 90 waa Wadani waanu aragnaa wankaasi mooyay cid qaadan doonta nadiri gelinaysa ruuxaano ina gaarsiinaysa inaanu guuleysanay bayna tusinaysa waxa inoo ballan doorasho xor oo xalaal oo inoo dhacda cod baynu ku kala baxaynaa Kulmiye iyo xisbiyada maanta dalka ka talinaya waxaan doonaynaa inaynu ka adkaan tagmayda qorraxda anna maanta burco iyo waxaan kala qayb galay dabaaldegii in aad iyo aad baan idinku mahadnaqay insha Allah taala inagoo degan baynu wada fadhiisanaynaa hadii ilaahay saddexda maalmood ee soo socota agteedu way ku baran doontaa insha Allah inta ka hadhay Muqtar Cabdi Jaamac wararka warbaahinta SBC la saanood